السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله waxaynu isu socday casharkeedii koowaad ee B babis falka farcama falka B gaara waxaynu baranaynay amnisaar. Haddaba tusaalayaashii ayaynu casharkan gudagelaynaa. Haddaba goormee am la isticmaalayaa, isna la isticmaalayaa, aarna la isticmaalayaa. waxay ku xiran tahay saa soo sheegnay casharkii ka horeeyey subjectiga ayaa ku xukumaya. Matalan haddii subjectiga uu I noqdo, subjectiga hadduu I noqdo waxaad isticmaali doontaa am ayaa isticmaali doontaa am ayaa isticmaali doontaa. haddii subjectiga uu noqdo he, haddii uu noqdo ama uu noqdo she, hadduu noqdo ama it, saddexda eray haddii uu noqdo. sidoo kale waxaa soo raaca singular noun, yani magac hal qof tusinaya. intaasna waxaa markaasi raacin doontaa is ayaa raacaysa. intaas erayadan waana fasiri doonaa xir kadib. haddii subjectiga uu noqdo we, haddii uu noqdo ama you hadduu noqdo ama haddii uu noqdo they, haddii uu noqdo subjectiga, erayadaas hadday noqdaan waxaa kaloo soo raaca plural noun, magac markaasi jamca oo markaa dad badan tusinaya. waxaa la isticmaali doontaa r ayaa raacin doontaa. marka midka isticmaalis waxaa ku xukumaya subjectiga. haddii subjecti I uu noqdo, I waxa weye waxaa laga af Soomaali aniga, waa aniga. am keligeeda am baa la isticmaalaysa. he oo ah isaga, she oo ah iyada, it oo markaa oo la macnaa isaga ama iyada, laba macno bay leedahay. iyo singular noun, s waa singular utagantay, intan waxaa laga soo gabaa noun, singular noun. intaasna maxaa raacay singular noun kale waxaa waaye mathalan hal qof magaciisa waaye cali oo kale ayaa subjectii wuxuu noqday cali. jumladii cali oo kale laga bilaa, ama caasha, waa singular noun sooma, waa hal qof magaciisii weeye. marka is ayaa raacin doontaa, ma garata. haddii erayadan lagu bilaabo we oo annaga ah, you oo adiga ah mise idinka ah, they oo iyaga ah, iyo plural noun magac wadareed, magac tusinaya dad badan tusinaya, ama laba qof ama wax ka badan tusinaya, waxaa la isticmaali doonaa r. marka inaad am isticmaashid, inaad isticmaashid, inaad r isticmaashid waxay ku xiran tahay subjectiga, falgalaha, ereyga aad ku bilowdo, yacni jumladda ayay ku xiran tahay. haddii I aad ku bilowdo waxaad isticmaali doontaa am. haddii intaan afartan midkooda he ama she ama it ama singular noun sida cali iyo caashana, maxaad markaasi isticmaali doontaa is. haddii we iyo you iyo they iyo ama plural noun waxa weye magac jamca sida matalan students oo kale, ardayda, waa wax dad badan sooma. ardayda waxay noqon karaa dabcan laba arday iyo wax ka badan bay noqon karaan. macallimiinta matalan waxaa leeyahay cali iyo caasho oo wada socda hal mar, matalan waa israaciil. cali an caasho oo kale hadaa dhaho waxaan isticmaalayaa r baan isticmaalay, lianno laba magaca hal mar sheegay mugta, subject iyo caasho aan caliga ka dhig. waxaan umaleynaa intaan inaan isla fahamnay. haddaba marka midkaa isticmaali doona dee tusaalayaashaan ku arki doonaa. fiiri before noun is am is r waxay kasoo hormaraan before noun is magacyada ayay kasoo hormaraan. hadda fiiri meesha jumladan fiiri, I waa maxay? waa subjectigii
I haddii subject noqoto maxaa raacinaynaa ma am mise is mise ah haddaba sheegeynay am baa raaciso am ayaa la raaciyey marka baas waxaa la raaciyey am ayaa la raaciyey aniga am waxaan ahay warka marka qofka intaas maqla wuxuu sugaya maxaa tahay sooma dhegtaa u taagan anigu am waxaan ahay ateacher macalin ateacher marka waa noun weeye waa qof dadka waxbara sooma qof kastoo dadka waxbara waxaa la yidhaha macalin waa magac marka la wadaagi karo marka I am a teacher anigu waxaan ahay macalin marka miida waa aniga kuu sheegayba bibals waxaa loo isticmaalaa marka aad doonaysa inaad dadka u sheegto waxa adigu aad tahay haddana waxaa idin sheegay inaan ahay macalin aniga am waxaan ahay a teacher macalin miida waay taa waa isla haynaa marka waay su'aalaha labaad fiiri you maxaa waay adiga you maxaa waay adiga you marka groupkaaga tirsantaa ma jirtaa you waa isticmaal maxaa raacinayna marka r baan raacinayna fiiri you adiga r waxaa tahay haye a student arday baa tahay marka you maxaa waay waa subjectigii wey haddaan you subject noqoto maxaa raacinay r ayaa raacinay studentna waxa weye waa nounkii waa magacii waa arday waa qof wax baranaya wey you are a student adigu waxaa tahay arday okay haddaba marka waxaa u jeednaa am iyo r maantay waxay isku xirayaan subjectiga iyo magac bay isku xirayaan sooma waa subjectii hadda am waxay isku xiraysaa I waa subjectiga iyo magacan bay u dhexaysaa you-na waa subjectigii kana waa nounkii marka r baa isku xiraysa marka before nouns waxa weeye waxay ka soo hormaraan oo ay ka soo horeeyaan magacyada bay ka soo horeeyaan waxaa soo horeey falalka b baa soo horeeya am iyo r oo kale magarat before nouns waxay ka soo hormaraan magacyada sida laba tusaal loogu muuqata anigu am waxaana a teacher macalin you adiga r waxaa tahay student arday halkan imo marka before adjectives waxay ka soo hormaraan sifooyinka adjectives waa sifooyin wey before adjective waxay ka soo hormaraan bibabska laga hadlaya waa am iyo isr lewaya waxay ka soo hormaraan sifooyinka okay waayo hadda baa la isticmaala subjectiga wey aniga am waxaan ahay hungary qof baahan anigu waxaan ahay qof baahan oo gaajaysan I am hungry waan gaajaysanahay wajida marka adjectivekii waa kana subjectigiina waa I weeye marka am waxay ka soo hormartay oo bverb waxay ka soo hormartay sifadii bay ka soo hormartay waa inaan sheegnay horaan kugu soo sheegnay sooma qolkooda subjectiga iyo bverbka wuxuu isku xirayaa subjectiga iyo sifada ayuu isku xirayaa ama nounka ama prepositionka waxaas waa laga soo dhis marka intii la waa intii wey waayahay waxaa yiri it kelmadda ama it isaga is hot waa kuleel it's hot waa kuleel wey it iyadu is waa hot kuleel today maanta ama it cimiladu is hot waa kuleel today maanta marka aan faraqayno it waxa weye hadda subjectiga maanta waxa weye waa it weeyaan it groupkan ugu tirsan sooma he she it iyo singular noun maxaa raacay marka is ayaa raacay hotna waa adjectivekii waa sifo wey waa maxay sifo hadii lagu dhaho waa baran doonaa
hadda waxba baxarkaas ay isu gelinaaday saa qabso un it is hot waa kuleel hot inay sifada u qabso today maanta it's hot waa kuleel today maanta waayahay before sidoo kale verbs waxay ka soo hormaraan prepositions xiriir tilmaamayaasha ay ka soo hormaraan xiriir tilmaamayaashu waa erayo yaryar waaye oo markaa ku tusinaya xiriir bay ku tusinayaan xiriir xagga waqtiga ah xiriir xagga goobta ah xiriir waxa weeye xagga sababta ah xiriiro badanay ku tusinayaan marka before maxaa waxay ka soo hormaraan prepositions wida meeleyaashay ka soo hormarayaan si hadhoodii subjectiga iyo prepositionka ay isugu xiraan waayahay hadda subject waxaa la isticmaalay she ayaa la isticmaalay she iyada wida marka she groupkana ka tirsan tahay waa he she it singular noun maxay qaataan is bay qaataan waa tenniska present simple markii la joogo waa moogta she iyada is at wida is at waxay joogtaa home guriga she iyada is at waxay joogtaa home guriga she's at home waxay joogtaa guriga maxaa saasuu noqonaya marka is maanta iyo udhexaysaa waxay udhexaysaa she oo subjectiga ah iyo at oo prepositionka ah kan marka mar kale aan baran doonaa waxaa loo yaqaanaa object of preposition haddaa aragto waxaa qasab ah waxaa ka dambeeya mar walba noun baa ka dambeeya magacan magacyaal ayaa ka dambeeya markaad sheekadaas geli mayno waa ka soconaynaa waayo the books buwaagta waa 2 buug iyo 3 buug ama 4 buug laga hadlay waa jamca wey the books buwaagta haye intii groupka ka tirsan waa groupkan miya maya waa groupkan wey ila waxaana we you they ama plural noun magac jamac wadar tusinaya ama iyo walxo badan tusinaya ama dad badan tusinaya wuxuu la mid yahay groupkan we you they sababto magacyaalkana lagu bedeli karaa sooma marka r bay qaataan kuwaas the books buwaagta ama la maya waa qalad ama waxay la shaqaysaa I oo keliya isma lii karaa maya waa qalad is waxay la shaqaysaa groupkan he she it iyo singular noun hal magac the books buwaagta are on preposition xoogaa macnaha ugu bedelayaa are on waxay saaran yihiin the table miiska ayay saaran yihiin the books are on the table buwaagtu waxa ay saaran yihiin miiska ayay saaran yihiin waayahay haddaba ka cashirkan waa iska fuudaa waan wadaynaa waaya point 2 qodobka labaad use u isticmaal baa lagu yiri u isticmaal an iyo am not u isticmaal for the pronoun I magacyaalka I use maxaa u adeegso am not for the pronoun I magacyaalka I waa pronoun wey waa pronoun magacyaal wey marka I isticmaashid waxaa kuu furan markii present simple la joogo inaad raaciso am inaad raaciso waa marka aad doonayso marka inaad sheegto wax adigu aad tahay yani waxaa rabtaa inaad sheegto wax aad tahay marka waxa weeye waxaad waa war adiga aad hubto oo aad ogoshahay ama wax aad ogoshahay inaad isku sheegto markaad doonaysaa isticmaalaysaa laakiin markii aad wax diidan tahay oo aadan ogolayn maxaa leedahay aniga waxaa raacinaysaa markaasi balaas waxaa raacinaysaa am not ma ihi saasaa laga wadaa marka am not ma ihi waxbaad diidan tahay marka
marka uyida saasaa lawada use isticmaalo am isticmaalo ama am not isticmaalo iyo am not u isticmaalo for the pronoun I magacyaalka I sida qofkan waxaa rabtaa inaad dhahdid anigu waxaan ahay qof markaasi dhilashadiisa ay tahay Maraykan I aniga am waxaan ahay American qof Maraykan ku dhashay I aniga am waxaan ahay Soomaali qof Soomaali ah I'm Somali waxaan ahay qof Soomaali uyida I aniga am not ma ihi tired qof daalan I aniga am not ma ihi tired qof daalan meeshaa marka xoogaa fiiri su'aalaha saddexaad fiiri waa ka yara duwaya waxaa lagu leeyahay am waxaa loo qoraa sidan eeda inta la tuuro ayaa calaamadan lagu bedelaa calaamada hamsada ah ayaa lagu bedelaa marka waxaa la sameynayaa I magacyaalkii I waxay qaadanayso waa hore soo baranay waxaan soo baranay am bay qaada soo maa waa ku dhejinaysaa marka am wax space waa ka ilaalinaysa space kadib inta la tuuro waxaa lagu bedelaa calaamadaas waa isku qabanaya marka am haddii I am sugaysa hadda waa la isku qabanayaa am happy waa faraxsanahay ujeedaa I am waxaan ahay happy qof faraxsan I am not sad I'm not sad ma ii qof murugaysan I'm not sad ma ii qof murugaysan marka halkan waxa weye amti waxaa loo qorayaa sidaas oo kale sidaasaa loo qorayaa ma garat marka isku day inaad wax weye hadda haddaan tusaale kale meeshaan tusaale kale haddaan bixino caraban bugan sidiis loguma talagelin orod loguma talagelin waa inaan si fiican fahantaa la doonaya مثلا حر هذا أنا ضه وحان أهي أرضينا حصل هنا أنيو أم وحان أهي أنا هاي student أرضي بانا طبعا I'm student marka waxaan kala u qori karaa sidaan waxaan kala u qori karaa inaan iraahdo aniga calaamadaas inaan qoro kadibna sida aan iraahdo waa ii banaanta marka waa la isku qabanaya am student waxaan ahay arday uyida waa I am meesha lila am student waxaan arday waxaa rabaa inaan diidimo ka dhigo maxaan samayn karaa waxaan samayn karaa inaan iraahdo aniga am not ma ihi firi am not ma ihi student arday okay lafteeda waxaa u qori karaa soo aan qaab kale fudud baan u qori karaa maxaan samaynayaa ayaan soo qaadayaa eedii baan tuurayaa intiina waan ku dhejinayaa eeda bedelkeeda calaamadaas ayaan ku bedelayaa kadib waxaa leeyahay am not anigu ma ihi student arday marka isku day inaad jumlad adiga aad samaysay oo gaaban yani ama happy oo kale I'm happy oo kale jumladan ma aragtay commentiga kusoo qortid adigoo afartaasi u qoraya mar adigoo si qaab dhamaysi u qoraya oo laba qaab oo markaasi oo ogolaansho aad ku muujinayso inaad faraxsan tahay iyo laba qaab markaasi qaabka dhamaystir iyo qaabka fudud marka sidaa waxa weeye afartaan siyaabood adigu u qoraya commentiga nagula wadaag aan ka socono
waxaa lagu leeyahay point 3 qodobka saddexaad use isticmaal baa lagu yiri are isticmaal ama and are not iyo are not u isticmaal for the pronoun you magacyaalka you waxaad u isticmaasha are ama are not horaa usoo barnay you haddaa aragtaba markii la joogo tenniska present simple maxaa la raacinaya dee are baa la raacinaya dee are baa la raacinaya sooma are baa la raacinaya waxaas marka waa naqaanaa you adiga are waxaa tahay a student arday you are a student adiga waxaa tahay arday you adiga are not ma tihid a teacher macalin ma tihid you are not a teacher adigu ma tihid macalin meeshaa marka fiiri marka meeshaan waa meesha aan rabno qaab fudud waa loo qori karaa lagu yiri qaab fudud oo waxaa lagu yiri meeshaan sida ka muuqata are mujid ahaa sidii amti oo kale eeda inta la tuura calaamada si lagu bedelayaa maxaa soo haray waxaa kuu soo haray r e bisaa kuu soo hartay intaasina sidee loo soo qaaday laakiin liskama qoro dee waxaa la sameynayaa udii ayaa udii baa qoraysa subjectiga u markuu yahay marka waa ku dhejinaysaa marka hore waa lagu dhejinayaa r waa ku dhejinaysaa laakiin dee eedaasaa la tuuraya calaamad waxaa lagu bedelaya hamsadaas yuwar bay noqonaysaa dalaaqu wax yar isbedelaya yuwar waxaa tahay a nice person qof fiican baa tahay you were a nice person you were a nice person waxaa tahay qof fiican you were not ma tihid you were not you are not ma dhowi you were saana ugu dhawaaq way fiiri you were warta biyaha maaragtay you were not ma tihid late qof soo daaha ma tihid soo dhaqsata adiga ujeedaa waxaa kaloo samayn kartaa in sidii hore u qorto laakiin markii ay diimo noqoto waxaa samayn kartaa waxaa soo qaadaysaa r ayaa soo qaadaysaa laakiin waxaa ku dhejinaysaa not owda hawada ku cunee kadibna waxaa ku daya calaamadaas apostrophe marka waxaa leedahay you aren't late meeshaa dhihi lahayd you were not late meeshaa dhihi lahayd oo arti aa ku dhejin lahayd subjectiga oo not si madax banaan aad u qori lahayd waxaa kaloo samayn kartaa qaabkaas waa samayn kartaa qaabkaas waa samayn kartaa ma fahamta mar marka qaabkaan fuuda u qori karta hal jumlad aan soo qaadan se waxaan u fahanaba hal jumlad aan soo qaadanayna si aan qodobkaan uga gudubno مثلا waxaa leenahay you adiga are late you are late waa soo dahdaa you are late waa soo dahdaa adiga you are late waa soo dahdaa qaabkaas u qori karaa maxaa kaloo samayn karaa in youda iyo art aan isku dejiyo oon isku daraba qaab fudud bay macnaha waa markii hadalkana waa maqlaysaa dadka luqadda u dhashay saasay ugu hadlaan labadana isku qabanaya waxaa samaynaysaa calaamadaasa calaamadaas ku bedelaysaa waxaa qoraysaa r ida kadib maxaa leedahay sidaasaa qoraysaa maxay noqonaysaa marka you were late waa soo dahdaa you were late waa soo dahdaa okay waxaa kaloo markay diidma ay noqotona waxaa samayn kartaa inaad qaabka buuxa aada u qorto qaabka dhamaystiran ee buuxa inaad dhahdeed you adiga are not oo intaa sideeda usoo qaadato are not ma tihid late qof soo daaha ma tihid you are not late ma soo dahdid marka diidmada ay noqoto marka
kan way ka duwanta laba si aa kuu furan marka laba si baa usoo gaabin kartaa inaad sidii hore ku wadid oo aad dhahdid yuda iyo waxaan isku dhejinayaa iyo artaan isku dhejinayaa inaad dhahdid waa dhahdid you are not sida madax banaan aa u qortid waa dhahdid you are not late ma soo daadid ama waxaa kaloo ku baahan yuda inaad keligeeda qorto oo labada isku dhejiso aranti owda habada ku cun aranti late waxaan rajeynaya inaad markaa ila fahmaysid halka aan u socdo mida marka adigu isku day inaad waxa weeye kuwa kale afartaa qaab usoo qorto waaya waan soconaynaa point 4 waa qodobka afaraad use u isticmaal is and is not for the pronoun she magacyaalka she halka waa soo bartay she haddaa aragtid markii tenniskan la joogo she waa gabar mugtahay she iyada waxaa rabtaa inaad wax ka sheegtid waxay tahay inaad sheegtaa rabtaa waxaad isticmaalaysaa weliba waqti hadda waxay tahay waa woya am iyo is iyo am iyo is iyo r waa bvals ma ogtahay ilan bvals horaa usoo sheegnay waxaa loo isticmaala markaad doonaysa qof inaad waxa u yahay inaad sheegto kuwan si gaar weli waxaad isticmaalaysaa markaad inaad qofta ku sheegto waxa hadda ay tahay ama sheyga aad ku sheegto waxa hadda u yahay ama qofka xaalad hadduu ku sugaya ama goobta hadduu ku sugaya waqti xaadirkan ayaa loo isticmaala marka gabaran shi waxaa rabnaa iyada waa gabar naga maqan weeye marka waxaan raacinaynaa shi is baa raacinayna okay sidaa wey marka is maxaa soo zaa'iday is not waa markii aan rabno inaan yacni waxa aan rabno inaan markaasi aan ku sheegin waxbaan u diidaynaa inaan ku sheegno isnot baa isticmaalayna ma garanaysa isnot ayaan isticmaalayna waa inaa ila fahamteen waaya haddaba soo fiiri waayahay mary gabadha leeyaha maariyo mary waxay dhahaan gabdhaha maariyo ama maryam mary gabadha leeyaha maryam is my friend waa saaxiibadiida marka mary maa mahay waa waxa ilaabin waa singular now waa hal qof magaciisa ma waa anigu ku dhahay caasho oo kale horena waa usoo sheegnay she iyo he wida she iyo he iyo it iyo singular nouns magacyada matalaya hal qof maxay qaataan caas horaa ugu soo sheegay is ay qaataan wida mary gabadha mary la leeyahay is my friend waa saaxiibadiida waa marka hadda waa gabar dee marka magacyaalka bedelay waa she magacyaala la isticmaala ingiliish waxaa mamnuuc ka ah magac haddii lasoo sheego marka laguma celiyo magacyaalka u dhigma ama bedeli kara magacaas ayaa la isticmaala she iyada markaa is not ma aha wida my sister walaasheeda maaha sababta horaa kuu sheego saaxiibadii marka waxaan diidayaa inaan sheego waxaan u diidayaa inaan ku sheego inay walaashii tahay marka waxaan leeyahay she iyada is waxayd keligeeda way tahay sooma is not ma aha my sister walaasheeda waaya she's very smart waa qof aada u caqli badan weye she's very smart waa qof aada u caqli badan fiiri meeshaan is waxaa loo qori karaa lagu yiri sidaan waa loo qori karaa is waxaa loo qori karaa sidaan ayada tuuraysa waxaa ku bedaysa calaamada hamsada ah oo apostrophe ayaa loo yaqaanaa ingiriisiga waa kaasaa marka she's very smart subjectiga she ayaa lasoo qaaday oo sidiisa waxaa lagu dhejiyey istii waaba lagu dhejiyey de
ayaa la tuuri calaamadaasaa lagu bedelay maxay noqotay she's inta kale sidoo usoo qaada she's very smart oo qof aad u caqli badan smart caqli badan wey veryna waa aad she's very smart iyadu waa qof aad u caqli badan waay marka waxay la mid tahay sidii aarti oo kale mujida diimadii maxaa la sameynaya marka diimadii laba qaaba loo qoraya isnot oo inaad markaasi subjectiga aad ista ku dhejiso oo not si madax banaan u qorto waa kuu furan tahay oo aad dhahdo she's ista ha ku dhegnaato subjectiga she's iyadu not ma aha here halkan she's not here iyada ma joogto halkan marka mujida she's not here ma joogto halkan waxaa kaloo samayn kartaa she si madax banaan inaad qorto isti oo ah b verbkii iyo not markaasi inaad labadooda isku dejiso she isn't dhaqaaq waxay isbedelaan she iyadu isn't here ma joogto halkan ma garat sidaasna waxaa umaleeya in aad iyo aad fahamteen ayaan rajeynaya marka hal jumladaan soo qaadanaya si aad si fiican ugu sii fahamtaan waxaa le matalan she iyada is here halkan ayay joogtaa she is here halkan ayay joogtaa waxaa kaloo qori karaa hab fudud baan u qori karaa inaan iraahdo she kadibna aan ku dhejiyo ista aan iraahdo sidaas marka ayda hawada ku cun waxaa ugu bedeshaa calaamadaas ayda marka waxay noqonaysaa she's here iyada halkan ayay joogtaa diimo markaa ka dhiga waxaan sameynayaa inaan sidii caadigeed u qoro oo aan iraahdo she iyadu qaabkii caadiga isnot toos inaan u isticmaalo wida is not here halkan ma joogto is not here halkan ma joogto waxaa kaloo samayn karaa inaan waxa weeye habkii fudaa aan u qorto oo subjectiga she iyo b verbka is aan isku dejiyo oo na yiraahdo she's not here not si madax banaan u qoran she's not here iyada halkaa ma joogto de joogto waayo ama waxaan samayn karaa she inaan si madax banaan u qoro oo ista aan soo qaato not aan ku dejiyo wida waa dabcan sidii art oo kale le waay waxay noqonaysaa she isn't here iyada halkaa ma joogto intaasba waa arki kartaa hala yaab hadda si fiican u baro marka cashigaa uu iska fudud yahay waa soconaynaa use 0.5 waa qodobka shanaad use u isticmaal is ama isnot u isticmaal for the pronoun he magacyaalka he majeedaa ilan he marka waxay isku gruubahayeen she iyo it iyo soomaan iyo singular nook waay haddaba jason wiilka jason la leeyahay is my friend waa saaxiibkay jason marka waxaa loo isticmaalay jason is baa loo isticmaalay sababta maxay tahay waa hal qof magaciisa waa socon waa singularna waa magac hal qof u taagan waa marka jason wiilka jason is my friend waa saaxiibkayaga he isagu is not ma aha my brother walaalkayga he's majeedaa he's isagu very smart waa qof aad u caqli badan he's very smart waa qof aad u caqli he's very smart waa qof aad u caqli badan he's not he halkaa ma joogo
he isn't here halkaa ma joogo marka isagana wuxuu la mid yahay dee she buu la mid yahay ida marka waad fahmi kartaa marka adigu isku day inaad hal jumlad oo he ka bilaabmaysa xagga comment inaad kusoo qorto kuwaan soo bedel macna he is oo soo gaabinaya waxaa leeyahay he is smart marka qaab kale usoo qor he is smart isaga waa qof caqli badan qaab marka soo qor qaabka fudud qaabka u dhigmaya fudud qaab diidmo oo buuxa qaab diidmo oo fudud qaab diidmo oo haddana fudud adaa isku day waayo qodobkaanaan gelaynaa use isticmaal and is not iyo is not for the pronoun it magacyaalka it marka it waxa weeye waa magacyaal loo isticmaalo walxaax caadi la isticmaalo ama waxyaaba aan nooleyn sida cimilada the weather cimiladu marka waa singular noun soo ma waa singular noun wey is cold waa qabow today maanta is waxa weeye waa taqaana waa bevabkii coldna waa adjective waa sifada markaa cimiladu ay leedahay dee waa qabow wey waa tilmaanta ay ku sifaysan tahay cimilada maanta cimiladu is not ma aha warm kuleel ma aha it is easy way fududahay it's not hard ma adka it isn't hard ma adka waa tabtii oo kale mathalan hal tusaale soo qaadanaya qalinkaan bedelinaya waxaa leeyahay it cimilada is warm waa kuleel baa oranay waa kuleel is warm waa kuleel okay waxaa rabaa inaan ka dhigo qaabka fudud inaan u qoro maxaan sameynaya waxaa leeyahay eat ista ku dhejide marka ayda tuur calaamada waxa u dilaysaa apostrophe waxay it is warm waa kuleel weeya it is warm waa kuleel diimaara inaan ka dhigo maxaa sameynaya de waxaan sameyn karaa inaan qaabka buuxo qor aan yiraahdo it is not toos isticmaal it is not ma aha warm kuleel ma aha it's not kuleel ma aha ama qaabka fudud inaan qoro oo ista aan xaggan soo raaciyo de aan yiraahdo it is not ma aha oo not si madax banaan u qor warm kuleel ma aha it's not warm kuleel ma aha iska layn karta soo ama waxaan samayn karaa istiinad baan israacinayaa de waxaan sameynayaa sida caadada ahayd waxaan leeyahay it isn't not iyo waxaa isku dhejinaysaa ist it isn't warm kuleel ma aha it isn't warm kuleel ma aha intaan salaynaa marka cashirka aada u fiyo dabcan wax soo noqnoqonaya u badan waayo aan sii socon use point 7 waa qodobka tobaad use isticmaal and are not iyo are not u isticmaal for the pronoun they magacyaalka they marka they waa magacyaal soomaali waxaa laga wadaa iyaga hal yiri beth gabadha leeya beth and pop iyo pop anigu dhahay ali iyo caasha waa laba magacay sheeg sooma waa jamac marka cambadaana jamac ka dhigaysa beth and bob beth iyo bob are my friends waa saaxiibadeyda waa dee iyaga are not from kama soo jeedaan hiya halkan kama soo jeedaan haye
they're nice people waa dad wanaagsan. they're iyagu waxay yihiin nice people dad fiican. they aren't shy ma xishoodaan. haddii ay xishoobaysiin waxaway sidaa laydinkaga sheekeeya ma xishoodaan u fiicnaade. they're not shy ma xishoodaan. they aren't shy ma xishoodaan. marka waa tabtii oo kale. su-aalo kalean soo qaadanaynaa si aan u jilcino. مثلا magacyo soomaali iska soo qaadanaynaa. haddaan ku dhaho cali an caasha. cali iyo caasha dabcan kabtaa. cali an caasha. cali iyo caasha. cali an caasha. cali iyo caasha. marka waa isla socdaa labadoodaas maanta. cali baan sheegay keliis haddaa ku ekaalan waxaa raaci lahay. keliis haddaa isticmaalan waxaa raaci lahay is baan raaci lahay soo ma. waxaan dhihi lahay cali is baan dhihi lahay yani waa singular now. waa hal qof magaciisa waay. waa magac keliya way soo ma. waa magac hal qof matalay. laakiin waxaa raaciyay maanta waxaa isku xiray laba magac kale. meeshan waxaa ku jira wax la yihahdo conjunction isku xire. cali ninka la yihahdo an caasho iyo caasho. marka laba qof baa magacaaba. marka ma raacsii karo hadda ma raacsii karo is ma raacsii karo. waxaan isticmaalaya ku khasbana inaan raaciyo inaan raaciyo. tusaale kaledan socdadaan oo ka waran asad wiilka la leeyahay asad and aamina gabadha leeyahay aamina. asad iyo aamina absabaanle waxay yihiin taabsalayna. marka sidaas uu leeyahay both beth and pop saasaa loo isticmaalay. marka andhadaa jamcinaysa dee oo plus bay ka dhigan tahay. andhadaa jamcinaysa okay. marka day aan isticmaalo. day aad tusaale ka bixin al tusaale ale day iyaga are shy way shiixaan ama way xishoodaan. qaabka lagu qori kara oo fudud waxaa samayn karaa sidii yuda lagu samayn jiray. labadana waa isku dhejinayaa. day arta iyo day wax space uma dhexaysiinay calaamada adoo selfaa ku bedelayaa. marka waxay noqonaysaa balaaqa waxyar u isbedelayaa. they're shy way xishoodaan. wida dii markaan waxaan samaynayaa arno toosaa u isticmaali karaa. arnta u isticmaal. they iyaga are not shy ma xishoodaan. magarat ama waxaa samayn karayaa inaan arteeda ku dejiyo subjectiya they sidai caadada ahayd inaan iraahdo they're not shy. intaan sidii soo qoraa marka they're not shy ma xishoodaan. they're not shy ma xishoodaan. ama waxa weeye arta iyo labadan isku xir isku dhiji labadaas. day sida madax baan u qoro. day si madax baan u qoro waxaa leedahay they aren't shy ma xishoodaan. intaa qaab wax waa arki kartaa. magarat intaa qaab waa arki kartaa. waayahay marka cashirka waxaa moodaa video inuu aada u dheeraaday. halkaas ayaan insha allahu
kusoo gabagabaynaynaa.